kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab waxay go'aan ku gaareen in ay laayaan oo xasuuqaan shacabka Soomaaliyeed. ayadoo ummadda Soomaaliyeed oo masaakiinta marka hore qaati laga taagnaa dhibkay ku hayeen ardadii jaamacadda ka soo qalin jabisay masaakiinta inta xabadii dhibaato u adkaysanayay intii u abaalgudi dhahayn war dhibaato wax ku barateen walaalayaal ummadda islaamka adinka anfacaysan dhii lahaayeen bay ayagii dilaayeen waxa kamid ah waxyaabo dadka ay jidka ku qarxinayeen macna xaqdarooyinka tirada badan oo ay nimankaas u galayaan uma aha niman diin ku ansaafto anigu uma arko ummadda muslimiinta Soomaaliyeed badna uma arkaan inay wax dad diinta qeyl kaga haysta ay yihiin diinta islaamkana waa la yaqaanaa wax macnaha qof soo qarsan karo ama qof intuu jeebka soo gashan karo dadka ana uga turjumaya maaha diinta Ilaahay waa caddahay culimadiina waa joogtaa ahkaamtii baa taala sunantii oo dhan baa taala meel ay ka soo helaan oo ay ka soo dalishaan ma jirto. Sheekh Cabduqaadir Nuur Faarax oo ahaa culimada Soomaalida kuwooda ugu waaweyn waqti dheerna ku jiray dacwada waxay dileen isaga oo ku tukanaya masaajidka. Sheekh Cabduqaadir wuxuu ahaa 80 jir. Sheekh Cabdirasaaq Nuur Xaashi oo imaam ka ah masaajidka ugu weyn gobolka Minnesota ee Abubakar Al-Sadiq ayaa ka hadlaya dilalka ay u geystaan culimada Soomaalida. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Mas'alada ku saabsan shabaabka iyo target gareynta ay culimada target gareynayaan waxay u baahan tahay qofka muslimka ah inuu ka fiiriyo laba dhinac. dhinaca koowaad waxa weeye waxa dhacaya oo cibar iyo duruus ay ku jirto qofku inuu horta fiiriyo waxyaabaha dhacaya qofku markuu fiiriyo inuu su'aal isweydiiyo oo maxay waxaan u dhacayaan haddana inuu balbarbar dhigo taariikhda wixii dhici jiray waxaa bilaabatay ururka xarakada Al-Shabaab dhibka ay ku hayeen dadweynaha ka sokow muddo hadda sano ama sanooyin laga jooga inay culimada target ka dhigteen culimo badan bay dileen musiibada ugu weyn waxay dhacday markay dileen Dr. Axmed Cabdiraxmaan sheekha wuxuu ahaa sheekh caalim ah oo iska daa mustawaha Soomaaliya ee caalamul carabi caalamka muslimiinta nin muhaddith ah oo mu'arrikh ah oo aad ay culimada muslimiinta dhan ugu kalsoon yihiin buu ahaa isagoo oo sooman maalin Caashura isagoo sooman oo salaad subax masaajid ku tukada ka soo baxay ayaa waxaa dilay wiil salaada masaajidka kula tukaday oo wax yaab la weeyay xadidkii asagoo dadku la yaaban yihiin dhacdadii oo dadka muslimiinta ka fajicisay ayaa waxaa dhacday mid kale oo ka daran Sheekh Cabduqaadir Nuur Faarax oo anuu shakhsiyan labada sheekh baan aqaanay Sheekh Cabduqaadir Nuur Faarax wuxuu ahaa nin da'a oo markuu uu yiraahdo 80 sano jira oo caalim ah oo culimada Soomaaliya jaamacatul Madiina ka soo baxay cilmi xadiidka looga dambeeyay ku jira markaas haddana waxaa la dilay maalin Jumco ah saacadii casarka oo waqtiga ijaabada dacwada la aqbalo asagoo oo safka labaad masaajidka ku jira oo salaadii rukuucsan markuu rukuucda ka soo toosay yaa wiil dhalinyaro ah 19 sano jira madaxa ka toogtay maskaxdiisii waxay ku daadatay
masaajidka safkii koobaad oo ka horreeyey bay ku daadatay. marka waxa yaab leh qofku inuu fiiriyo xadadka dhacaya nin sheekh ah oo ka horta muslim ah oo haddana caalim ah oo haddana diinta ku ciroobay oo haddana masaajid ku jira oo haddana maalin jumca ay tahay oo haddana bacd saacadii casarka ay tahay ninka masaajidka ku dilay ma aha sheeke waa nin al-shabaab ah oo la hayo oo la yaqaano weeye. iyada oo tii dadku ay la yaaban yihiin ayaa usbuucii hadda la soo dhaafay dhexdiisa waxaa sidii oo kale la dili rabay oo bam loo dhigay Dr. Bashiir Axmed Salaad oo ah culimada Soomaaliya ugu waaweyn oo haddana majmaca culimada Soomaaliya hay'adda culimada Soomaaliya madax ka ah sheekh la yaqaano ilaa markuu yara dacwada ku soo jiray jaamacad Karaaji ku taal yiraahdo Abu Bakar Islamic University ayuu madax ka ahaan jiray haddana waa mas'uulka culimada Soomaaliyeed ayaa asaga iyo reerkiisii oo baabuur saaran yaa bam loo dhigay. carruurta yaryar iskoolada iyo dugsiyada quraanka ayay ka wataan waxay ka dhigaan askar iyaga oo aanan ogeysiin waalidiintooda. carruurta ciidamada u ah qaarkood waxay jiraan 6 sano iyo 7 sano. al-shabaab meesha waxay u joogaan laynta iyo baabi'inta dadkooda iyo in Soomaaliya marna aynay noqonin dhul nabada kala dambeyn ay ka jirto shaqo ay ka jirto taasna waxa kuugu daliila ayagoo mar walba taarget garaysta goobaha ay joogaan dadka Soomaaliyeed sida goobaha ganacsiga hoteelada xeebaha baabuurta PLK ee ummaddu raacdo ee lagu adeegto marka al-shabaabku marna danta ummadda iyo maslaxadda ummadda ma wadaan qorshahooda iyo ujeedadoodana waa baabi'inta dadkooda iyo dalkooda. waxaa la arki karaa aqoon-yahaniinta ay ururkan ay dileen waxaa ka mid ah dad ummadda Soomaaliyeed u adeegayay oo ay ka mid tahay Dr. Qamar waxaa kaloo ka mid ah Professor Ibrahim Cadow waxaa kaloo ka mid ah inay dileen nin oo caan ahaa oo Dr. Axmed Cabdiraxmaan oo wadaada marka arintan waxaa la arki karaa inay tahay arin lagu gumaadayo wax garadka Soomaaliyeed ama dadkii u istaagi lahaa
oo inay ummadda Soomaaliyeed dib u dhiskeeda iyo soo celinteeda ka shaqeyn lahaa marka waxa wax really aan la aqbali karin oo loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed meel uga soo wada jeestaan ayaa arrintan u arkaa aniga gabdhaha yaryar ee Soomaalida waxaa qasab loogu daraa argagixiso ka timid wadamo kale waxay u guursadaan afar haddii aan kaaga waramo nimankan loo yaqaano al-shabaab ama argagixisada waxaad moodaa inay wataan mowqif gooniya oo aad si dhalinyarada ay ku bedelaan maskaxdooda ayagoo aan ka fakaraynin future-ka ama dhalinyarada waxa ay ay leeyihiin run ahaantii cunuga yarka ma oga waxa uu qabanayo ma oga in dadkiisa loo diraayo ma oga in la leeyahay waddankaaga qarxi waxyaabahaasoo dhan intay daah ka saaraan muddaa filim gooniya u shidaan filimkaasoo ah janna lagu gelinayaa haddii janna la aadaayo adi maxaa kuu diid ما يراعي جنات عصر أدنى جنبه أنا قفك وين فكرتي وها موقته مركا حرجينا يعني يرى الصوماليين ملك سير جوجان بقى ضد كان ودن كان بابيي وضد كان بابيي ومالين كستا أردي يرير أو سكول ديجانا يسا قرحنايو فميلو قرحنايو هوين دمر ويل إني أركان إني ضد كان تدحينين ويكفوا جادان سببته هدي أنا dhalinyarada annaga aan wacyi gelin oo u sheegin raggan waxa ay yihiin waxaan way socon doonaan ma dhamaanayaan laakiin waa annaga waajibna saaran hadaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogaan in aan ka hortagno in aan u sheegno runta diinta islaamka waxa ay dhigayso wadaadada waaweyn waa ka hadleen qof kasta waa og yahay waxa loo sameeyo ugu weyn waxa weeye waxay aaminsan yihiin nimankani in mujtamaca Soomaaliyeed dadka kaliya oo ka hor istaagay inay dadka baabi'iyaan oo gaalaysiiyaan ay tahay culimada dhahaysa war Allah ka baqa war dadkan gaalo ma aha war dadkan waa muslimiin hadaladooda waxa kamid ah culimadana waa sanam waa in dadka laga hor leexiyo si mujtamaci asagoo xoolo camal ah dhinacii la rabo loogu kaxaysto marka mas'alada targetka laga leeyahay waa intaas waxa hadda culimo badan baa Soomaaliya joogta lama target gareeyo culimada iska businesska ku jira ama aan la aqoonin ama jaamacadaha iska jooga waxa la target gareeyaa kaliya ninka daaciga oo dadku ay codkiisa iyo sawdkiisa maqlayaan waxa yaab la marka xarakadan ama firqadan maxay tahay culimada hadda muslimiinta waqtigan jooga culimada waaweyn oo Soomaaliya lagu kalsoon yahay waxay isku raacsan yihiin xarakadan inay tahay xaraka ama firqa min firaq al-khawarij فرقة كم فرقة خوارجته خوارجتنا وح علامة لو قرتها إن علماء يدك الدين وشيء يدك تارجت قريات وحيد لين عثمان بن عفان وحيد لين علي بن أبي طالب وحيد لين وكسي الرئيس عبد الله بن خباب بن أرد صحابي اللي يجري هي علماء بدن وكمل علماء المسلمين مركا ما سيج كان ما أنت الدرية وحوي فرقة حتى علماء وحيد مركا حتى كهاليان ويكرموا متان بدنتها خوارج waxay sameeyeen dadka way gaalaysiin jireen laakiin kuwan hadda waxay fatwoodeen oo sheekooda ugu weyn oo fatwooday qofka hal dilo isagoo muslim ah wuxuu leeyahay marka kan wax dilay waa mujaahid kan la dilayna waa shahiid oo janno galaya marka macnaheedu waa maxay boqol dumar ah oo suuq jooga hadduu ninka dhalinyaradu qarxiyo oo laayo asagu waa mujaahid ayaguna waa shahiid weey marka waa wax aan dhicin taariikhda islaamka weey marka qofka muslimka waa inuu ku baraarugo oo uu dadka uga digo oo dhalinyarada uga digo oo uu ka cararo war dadka maanta dhahaya xarakadan way dhunsan tahay war dadkan hal iska jiro waa culimadeeni weey waa dadka culimada dadka ugu waaweyneed goobaha ay qaraxyada la beegsadaan waa goobaha ay joogaan ardayda maqaayadaha
cuntada laga cuno iyo xeebaha ay dadka isugu yimaadaan. waxay diidan yihiin horumarka. waxay rabaan in ay dadka cabsi geliyaan. goobaha dadku isugu yimaadaan, goobaha maqaayadaha, restaurantiyada weliba waaweyn oo ama jaaliyadaha dibadda ka tegey ama dadka Soomaaliyeed ee maaragtay magaalada Muqdisho kale, waa goobaha ay dadka bambooyinka iyo baabuurta walxaha qarxa ay ka soo buuxiyaan ay u dhigaan. waxaa ka mid ah goobaha jaamacadaha, xataa hadday tahay meel ardayda Soomaaliyeed sidii kal horeba ay sameeyeen, goobaha ardaydu ay isugu yimaadaan ama ay ku qalin jibiyaan, naftoodu waa meelaha ay taarget garaystaan. waxaa ka mid ahoo kaleeto baabuurta la raaco. baabuurka wuxuu qaadayaa 20 qof 30 qof, meeshii maaragtay taraafig iyo maamul ma jiro. waxaa laga yaabaa baabuurka overload inuu yahay ama dadkii ay buuxdhaafiyeen. waa meelaha ay dadka ku laayaan oo ay markaasi kuna sheegtaan inay guul helaan. والله waxyaabaha dhacay ikhwaan waxa kamid nin baa wuxuu yiri la yaqaano oo ragga la socda waxay ku fiicnaan lahayd xabada Sheekh Cabdiqaadir maanta ku dhacday ninka ku dhacday inay ku dhacdo Sheekh Umal iyo Sheekh Shibille yaan jeclaan lahaa maana waxa weeye marka Sheekh Umal Sheekh Shibille Sheekh Maxamed Idriis Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Umar culimada Soomaaliyeed inta la magacaabo nin baa wuxuu soo qoray maalinta Sheekh Cabdiraxmaan xamar tagay Cabdiraxmaan Sheekh Umar ba xamar jooga talo ma kala fakan doonaan isaga mujaahidiinta waxyaab la weey waxaad kala isweydiisaan ikhwaani nimanka hadda waxa qora oo sabood gareeya oo taageera waa niman magaaladan Minneapolis iyo Mareykanka jooga wuxuu qofku isleeyahay war culimada waxay ku xilxiran yihiin nin shabaab wici jiray baa soo wacay bay ku xiran yihiin ninka waxa wax qorayana waa nin mujaahid oo magaaladooyinka Mareykanka jooga marka hadalkaasi qofka uu mari doono muslim ma garanayo xarakadan marka waa xarakada noocaas intaas aan ka dhihi lahaa jazakumullahu khayran wallahi yaqul xaq wa tasabil inta badan ayagoo dadka cabsi geliya waa in laga baqo. waxyaabaha ugu badan ay suubiyaan goobaha ay soo galaan ama inay dadka madaxyada ka gooyaan ama ay meelaha qarxiyaan waa in dadka wadnaha ay gooyaan oo ay dadku ka cabsadaan oo ayagu markii la arkaba uu dadkii oo dhan khalqalo oo wax baxa la waayo, wax ganacsada la waayo, wax isdhexgalan la waayo. waxa la idinka baqo. inta badan waxay falkaas u Soomaaliland waxaan ilahaa meel looga soo jeesto waqtigii waa la gaaray. waa enough is enough. ummadda Soomaaliyeed iftiin baa u soo baxaya. ummadda Soomaaliyeed waxay rabtaa in ummada wax la qaybsato. wax badan baan isleeynay, dagaal qabaa'il aan soo marnay, waana ka soo heshiinay hadda dagaal diineed ma gali karno. waxaan dhihi lahaa waxa weeye in culimada iyo aqoon-yahaniinta iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa arrintan ajaanibka nuga waana shaqana ku lahayn oo in dadka la qarxiyo oo dadka la isdilo in meel looga soo wada jeersado la yiraahdo enough is enough. ragga dagaalamaayo oo wajiga qarsaday oo fuliyaasha ah caruurtoodii aw weliga ma maqashinin ayay kamid cunugiisa as qarxiyay ma dhacdo. caruur bay leeyihiin waxaa laga yaabaa inay afar xas leeyihiin aw caruurtoodii ayay ma rabaa inay isticmaalaan. waxaa laga yaabaa caruurtooda inay arbaha u joogaan oo wadamo kale lagu biilaayo wixii ka dambeeyaba waxaan marka dadkan waa inaan ka hortagnaa meel kastaan joogno Soomaali haddaan nahay waddankeena aan ceshanaa aan isku duubnaanaa.